faa'iidooyinka cajiibka ah ee caafimaad ee laga helo isticmaalka betroodka haddii aad u isticmaasho sidaan kuu sharxi doono insha allah waxaan kula wadaagi doonaa 9 faa'iido oo cajiib ah oo aad ka heli karto qudaartan hortiina ka muuqato qaabka loo isticmaalo xilliga ugu fiican isticmaalkeeda inta hadda lagu ogolay inaad ka isticmaasho maalintii qaabka ugu fiican ee loo diyaariyo dadka loo ogolay inay isticmaalaan kuwa aan loo ogolayn isticmaalkeeda cilmibaarisada caafimaadku waxay ka dhaheen geedkan aadka muhiimku ah isticmaalkiisa dadka qaba dhiig karka faa'iidada gaarka uu leeyahay betroodka iyo xaddiga loo ogol yahay dhammaan waa sharxi doonaa insha Allah ka faa'iideysi wacan la wadaag asxaabtaada si kula faa'iideystaan magacayga waa Dr. Cabdirasaaq soo dhawaada mar kale kahor intaan u guda galin faa'iidooyinkiisa iyo qaabka loo isticmaalo aan marka hore sharaxna fitamiinada iyo macdanta laga helo geedkan sida hortiina aad ka arkaysaan waxaa si aad ah ugu badan macdanta iyo fitamiinada muhiimka u ah caafimaadka xubnaha kala duwan ee jirkeena sida hortiina aad ka arkaysaan vitamin B9 vitamin B6 oo aad muhiim u ah saa arkaysaan bedelida cuntada in loo bedelo energy wax la mid ah iyo unugyada dhiigga soo saaridooda soo kale calcium oo muhiim u ah lafaha soo kale macdanta iron oo muhiim u ah unugyada dhiigga iyo shaqadooda soo kale magnesium oo saa arkaysaan muhiim u ah difaaca jirka iyo wadnaha iyo murqaha iyo neerfaha caafimaadkooda dhammaan muhiim u ah sidoo kale manganese wax loo yaqaan macdanta loo yaqaan taasoo muhiim u ah ama ka qayb qaadata burburinta cuntada iyo bedelideeda sidoo kale controlida heerka sokorta ee dhiigga sidoo kale waxaa laga helaa betroodka fosforka maadadan la macdantan taasoo muhiim ah arkaysaan caafimaadka ilkaha lafaha iyo dayactirka unugyada iyo wax la mid ah sidoo kale copper ayaa laga helaa oo ayadana muhiim u ah caafimaadka lafaha iyo xididada dhiigga sidoo kale copper arkaysaan waxay caawisaa unugyada difaaca jirka sidoo kale maadada zingiga la ayaa ku jirta betroodka saa arkaysaan taasoo sare u qaada bogsashada degdega ah oo qofka dhaawac wax la mid gaara in jirkiisa degdeg u bogsado sidoo kale zingiga saa ogna waxay caawisaa sare u qaadada nidaam difaaca jirka sidoo kale betroodka waxaa ku jira vitamin B9 saasoo sheegay marka macdantaas iyo fitamiinadaas kala duwan ee muhiimka ah ayay kulansatay qudaartan hortiina ka muuqata arkaysaan marka intaas waa nutrientska ama nafaqooyinka ama fitamiinada iyo macdanta ku jira iyo fitamiinadaas macdantaas shaqooyinka ay qabtaan oo si guud aan u dul marnay marka aan u guda galno 9 faa'iido oo qofka ka heli karo haddii uu isticmaalo betroodka saa arkaysaan faa'iidada koowaad waxay sare u qaadaa shaqada dheefshiidka oo waxay qani ku tahay ama ku badan fiberkana saan casharo badan kusoo sharaxnay wuxuu muhiim u yahay socodka ama dhaqaaqa dheefshiidka oo caloosha qofka inay socoto sida hortiina baa ka arkaysaan oo qofka calool fadhi inuu ku imaan marka qaybta gadaal ayaan ku sharxi doonaa qaabka loo isticmaalayo marka qofka calool fadhi uu ka cabanayo haddii uu isticmaalayo betroodkan qaabka uu isticmaalayo qaybta gadaal ayaan ku sharxi doonaa marka haddii calool fadhi wax la mid ah ka cabanayso aad ay ku anfacaysaa dibirye wax la mid ah ka cabanayso aad ay ku anfacaysaa sidoo kale dheefshiidka faa'iidooyin kale uu leeyahay waxaa ka mid ah saa arkaysaan waxaa ku jira maadadan loo yaqaan glutamine saa ogtihiin waa maado aad muhiim ugu ah xuubka dahaara dheefshiidka marka maadadan waxay ka ilaalinaysaa xuubkaas in si fudud oo ku dhaawamo oo tusaale oo kale qofka gaas iyo wax la mid haddii uu qabo si fudud ayuu boog ku yeelan karaa xuubkan caloosha mandheeraha ama xuubkan tubadan dheer ayaa dhaawacmi kara oo qofka hor fara badan ayuu ka dareemi karaa ama olol jir gudihiisa ama jirka banaankiisa kuleel fara badan ayuu qofka dareemi karaa marka qaadashada betroodkan waxay yareynaysaa ama hoos u dhigaysaa khatarta u nuglaanshaha dhaawacyada xuubkan ku yimaado maadaama maadadan glutamine ay ku jirto markii aan fahanteen ayaa rajeynayaa faa'iidada uu leeyahay dheefshiidka labo sida hortiina aad ka arkaysaan waxay sare u qaadaa ama caawisaa caafimaadka maskaxda oo sida cilmibaaris hortiina ku arkaysaan haddii qofka betroodkan oo qaato soo kale jimicsi oo la sameeyo arrinkan waxay sare u qaadaysaa qulqulka dhiigga ee gaaraya maskaxda gaar ahaan qaybtan frontal lobe ama qaybtan hore oo saa arkaysaan qaybtan horena saa ogtiin waxay qaabilsan tahay qofka go'aan qaadashadiisa iyo xasuustiisa iyo xifdintiisa wax dhan macluumaadkaas meesha qaabilsan waaye marka muhiim ay u tahay shaqadii caafimaadka
maskaxdeena saddex beetrootka qofka haddii uu qaato sida hortiina waa ka arkaysaan waxay leedahay anti inflammatory property oo loola jeedo qofka yacni in ay ka yareynayso yacni inflammationka oo qofka inuu xanuun dareemo sida jirka inuu hor iyo wax lamid oo ka dareemo sidoo kale qof kala goysada oo kale inay xanuun inflammation ka jiro sida jilbaha iyo wax lamid inuu xanuun qof ka dareemo dhabarka marka aad ay u yareysaa inflammationka oo qofka inuu xanuun iyo gubasho jirka ka dareemo iyo xanuun ay ka yareysaa oo murqaha qofka inuu xanuun iyo wax lamid ka dareemo sidoo kale saa arkaysaan ay hoos u dhigtaa haddii uu qofka si joogta ah u isticmaalo mirahan ama qudaartan beetrootka afar faa'iidada afaraad sidoo kale waxay caawisaa ama hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga oo si dabiici ah waxaa ugu buuxa sida hortiin aad ka arkaysaan maadooyin yacni muhiim u ah hoos u dhigga cadaadiska dhiigga oo saa arkaysaan waxaa kamid ah yacni nitrateska ayaa kamid ah nitrateskana yacni shaqadiisa wuxuu yahay in blood pressureka oo yareeyo asigoo yacni xididadii relaxation ku sameynayo ama dabcinayo si maaragta cadaadiska dhiigga oo hoos ugu dhaco marka relaxationkaas lagu sameynayo blood vesselska ama xididada dhiigga yacni relaxationka yacni loola jeedaa dabacaas lagu sameynayo waxay keenaysaa in cadaadiska dhiigga hoos u dhaco marka arrinkan wuxuu aad muhiim ugu yahay dadka qaba dhiigkarka sidoo kale haddii aad caafimaad qabto in dhiigkarka ay ka hortagto ayay kaa caawinaysaa maadaama yacni cadaadiskaas faraha badan leh ee ka yareynayso xididada dhiigga marka aad ayay muhiim ugu tahay haddii aad dhiigkar qabto balse haddii qofka dhiigkar oo qaba xaddiga oo ka qaadanayo iyo xilliyada oo qaadan karin gadaal ayaan ka sharxaynaa insha allah sidoo kale waxay muhiim u tahay yacni hooyada ama dumarka markay caadada gooyaan oo da-da 45 ama 50 wax lamid ay gaaraan caadada ay ka go'do aad ayay muhiim ugu tahay isticmaalka beetrootka sababtana waxay tahay qofka xilliga caadada uu gabo wuxuu khatar ugu jiraa cadaadiska dhiiggiisa inuu sare u kaco wuxuu khatar ugu jiraa in cuduradan ku dhaca wadnaha wax lamid ah يعني inay ziyaadaan yani jaanisku qofkaas ugu dhici karaan marka isticmaalka qudaartan hooyada markay 40 ama 50 iyo wax lamid ay gaarto aad ay muhiim ugu tahay oo qataraha ku imaan lahay wadnaheeda ama xididada dhiigeeda ayaa hoos u dhacayo maadaama nitrate ku jirto oo blood vesselska ama xididadii yani ka ilaalinayso in yani cadaadiska dhiigga uu ku ziyaado marka ayadan aad muhiim ugu tahay yani qof weyn hadaa ay tahay rag iyo dumarba macnaha si guud qof weyn hadii aad tahay in beetrootkana isticmaasho si qatarta dhiigkarka haday noqon stroke oo ah xididada maskaxda ama jirka inay dhiig ka xirmaan ama ku furmo iyo wax lamid marka xaaladaas halista way ka caawinaysaa inay ka hortagto haddii aad u isticmaasho sida qaybta gadaala isticmaalkan ku sharxi doono insha allah faa'iidada lixaad saa arkaysaan hortiina sida cilmibaarisada ay caddeeyaan waxaa la sheegaa in yani khatarta kansarka yani ay hoos u dhigto qofka inuu kansar ku dhaco hoos u dhigto waxaa la sheegaa dadka isticmaala beetrootka badanaa in marka loo barbardhigo dadka aan isticmaalin oo dadka aan isticmaalin ay u nugul yihiin taasoo la micno ah in maadooyin ku jiro yani beetrootkan ay ka hortagayaan u nuglaanshaha khatarta kansarka sida hortiinaba yacni ka arkaysaan todoba saa arkaysaan haddii aad tahay dadka jimicsiga wax sameeyo exercise performance-ga ama jimicsiga yani way ka caawinaysaa maadaama energy levelkaada ay ziyaadinayso haddii aad dadka jimicsiga sida aadka u sameeyo in cabitaankan hore u qaadato markaa jimicsiga aadayso ama aad cabto markaa jimicsiga wax lamid kasoo laabato aad ay ku caawinayso energy fara badan ayaa ka helaysaa yani boring ama caajis fara badan kuma dareemayso maadaama yani jirka ay active garaynayso marka aad ay muhiim ugu tahay sida hortiina baa ka arkaysaan sideed sidoo kale waxay caawisaa muhiim ay u tahay caafimaadka beerka oo saa arkaysaan waxaa ku jira antioxidants taasoo caawinayso ama ka difaacayso beerka inuu yani inflammation ku yimaado ama uu dhaawacmo sidoo kale waxay sare u qaadaa in yani ama beerka ay ka caawisaa qashin saarka yani sida hortiina yani ka arkaysaan faa'iidada sagaalaad ee ugu dambeyso waxay ka hortagtaa dhiig la'aanta maadaama beetrootka sida hordhici baan kusoo sheegnay yani uu aad ugu badan yahay macdantan loo yaqaano ironta taasoo muhiim u ah yani samaysanka unugyada dhiigga aasaas ama red blood cells wax loo yaqaano kuwaas shaqadoodu ay tahay in jirka xubnihiisa kala duwan ay gaarsiiyaan oxygen marka iyadana yani aad ayay muhiim ugu tahay waa faa'iidada sagaalaad marka sagaalkaas faa'iido ayaa laga helaa beetrootka haddii aad u isticmaasho sida aan sharxi doono insha allah marka sidee loo isticmaalaa
sida hortiin ma ka arkaysaan waxaa la dhahaa qofka galaas ilaa 2 galaas micnaha hadduu cabitaan u shiidanayo yacni way ku filan tahay maalintii oo 2 xabo ama 1 xabo beetroot ka mid ah yani haddii uu ku shiid sida hortiin yani qormada ka arkaysaan qofku way ku filan tahay sidoo kale sida hortiin ka arkaysaan dadka qabo dhiig karka ama daawooyinka dhiig karka qaadanayo يعني إني دكتور كود لا تشتاي وناكسن مادام قفك دعاء عبو داودنا واستعمال لين داود على اسك ديق يرينه بترود كان دوسي استعمال على اسك ديق ادي وسي يرينه marka adigu daawooyinka ay ka yareeyeen cadaadiska dhiigga hadii beetrootka ku sii dul darto dhibaato ay ka dhalan karto marka waa xaalad halis ay gali kartaa cadaadiska dhiigga ayaa hoos u dhici kara sidoo kale cadaadiska dhiigga haddooba hoos yahay mar walba oo pressure-kaada dhacsan yahay inta badan oo pressure-kaada dhaco aydan ma ku wanaagsan inaa isticmaasho maadaama pressure-ka ay hoos u sii dhigayso marka haddii ay qabto cuduradan ku dhaca wadnaha ama haddii ay qabto dhiig kar iyo wax la mid ah ama xididada yacni dhiig cillad ka jirto fadlan ha isticmaalin adigu aan la tashanin dhakhtarkaada sidoo kale haddii keliyaha ka xanuunsan tahay ha isticmaalin ama la tasho dhakhtarkaada oo beetroot scan maadadan oxalate-ka la dhaho oo dhagxaanta keliyaha yacni ay ka samaysmaan ayaa ku badan saas darteed yacni haddii keliya xanuun aad dareemayso la tasho dhakhtarkaada kahor intaadan isticmaalin ina fahanteen ayaa rajeynayaa wixii su'aalaha qabtaan qaybta falada ma commentiga inoogu reeba asalaamu calaykum